وقيبتي لبعض برنامج كي حصوص راب وكي هو مرتي نوغو أها مسبح عبدي كنا وحنو كدوبينا قيبتي لبعض برنامجك قيبتي هوري waxay noo maraysay 1900 iyo markuu soo dhameystay 85 qiyaastii ama horta markuu Mareykanka tagay bal hadda wuxuu bartay waa kan hal soo celiyeeyay haddana way noqon weyday oo safiirkii wax soo noqdeenoo dabeedna waxay noqotay halka ka dhameysto bal marka intii ka dambeysay iyo ilaa intuu islaamta ku soo biiriyay iyo jabkii iyo baabi iyo dambe uu soo quliso qaybta ku lahaa ayaynu qaybta labaad ka bilowmi doonaa Muuse hay maxaa marka ماشي marka tagay safiirkiina oo sadaqii noqday oo iska qawoobay wixii xamar laga hadlayay in wanaagsan baan noqday waxa la sheegayaa markaan dhameysto oo noqonaya ballan waa noqon ku dhaxajiyay dadna waxaan ku cod yar bay taagane meesha waa dhaxan oo hor badan xaaskayga maqan xaaskana halay kan way xaaskayga inantiisu soo koreen oo soo qaado oo keenay أنا برواق أنا سكاح. وات. أنا فورلي وضع سكول كاس أوس ردوي أيا واحد عايد قال كي بورة ما لحلا ندري. واي. تنا إذا عبروا بك قيلس. تنا التلفون بعد سودا لقى صدره. وحيلا سو هذا لون حرستين كلها آدم الشيري. عبد القادر كوسار. آدم سليمان. saddexda waa la warhaysto Allah yarxamo tana waxay ugu yiraahdeen hal daad fadhidana ka oo soo dhaqa hadaa taagteen soo dhaqa habeen labaadkiina rag badan bay la soo hadlay in askar kamid yahay dayb guriyo ina kaano shabilo arabtan laga soo waxa la xaaji waqtigaagi baa jooga way dadka waxa loo jiray hebel ba waqtiga habo marka hore saad shiini waxa la baxayeen karaada dhagax dhulkay mareen quraacay ka baxaan waxa ku xigay maxamed kaahin qorsho ku jiray waxa ku jiray dayb guray shakiib ninkii loo jiray muuse nadiif saas la isku xigay qol boqola ha dadana sidoo ku tashaday ila waa amar waxa laga soo amray soo hadlay baa culus taliskayga guud eeda laga soo amray waxaan ku waxa ilaa bilba yaaba lagu xidhay koorska imtixaanka dhameeyo oo farsamada hay hagaagto sidee safaaradana aan uga een uga heshadee hawsha sidoo loo nin tagayaan daraxa ka ahaa safaaradda si wacan buu ayaa lagu soo bixi gacaltooyay xitmaar sidee markaa saddex habeen hurday guri ayaa waxa ku raadinay mukhaabaraadkii Sacuudiga way saddex habeen guriga laga saaray shantii barkii diyaarad ka duulaysan abdo raacay waxaan ku roonaa laba fiisa sitay way abdo aan ka degay khabartu maxay ku doonayeen balay safarda raadsi tiafweer tii naga soo baxsanaya hal qabto tii soo shaydan soo khabartu balaa hay mugti kawash waxaan ku roonaa markii hore laba fiisa soo qaatay dabeetana waxaan ka degay Abu Dhabi way meel yar oo yaafuul loo oran jiray oo dadka dayarka galaan ayaan meel yar oo sanadqad yar oo meel yar huruush marka waxaan doonaynaa xirooyin inaan tagay Ethiopia marka way nagu cusubtay oo marinkeeda iyo wixii adag dibadda laga tago xaaskii waxaan doonaynaa ka taga meelahan Carabaha markaan joogay balaha dhowr iyo 20 shameelaha ay waxba ihaaglaayihiin fiisadan iska dhowdahay ayaa cashayda baadana qeyraan timid oo la safaaradda ku daba taagan tii Abu Dhabi bay ku daba taagan suuq ma bixi kartid oo hudheer ma tagi kartid oo meel cilmi ku dhigay mukhaabaraadka carabta way dhuumashaan ka fulay airportka Djibouti ka digay way fariid Djibouti markaan maray baasaboorkii Soomaaliga waxaan ku riday dasbinka way waya abahay baa Djibouti ahaa ana kaar baan ku lahaa aqoonsi marka waxaan ku tala galon in hadii la isqabsaan ma bihi atraahuna anigu Djibouti jimba wadaada habeenkii markaas ayaa aragtay laga duulay way Djibouti ha wala qabtay way fiishta leeyay waana oo caynkaas oo baahan oo sharciga oo kaasoo raadkayga waa la helay Djibouti way soo baxday cadaatay in Djibouti
aabbahay Jabuuti ahaa anaan kaar ku ahaa waayo toddobaadkii markii aan galaya askarta diyaaradda waan ka raacay Jabuuti fariid dee laakiin kuntii kale u boodo lumay fariid waa abaha markii hore military ku ahaa ma reer Jabuuti civil buu ahaa ku ahaa airport shaqo jiray dabeeto inta la qabtay ayaa chief iyo joog iyo fadhiba la isoo wareegay nala gendarme salon si lagu yiraahdo la garan waayo marka maya yaa la soo hakinaya koofi cadii ma jooxad joogo wuxuu leeyahay diyaaradda aroorta la saaray dabeetana odayaal badan marka guhaad baa wasiir libaaxa waay ciise gabow dhawaay odayaal badan baa isu tagay koob iyo tobankii maalin ay isku daruureen xasan guuleed waragii ay soo wada halgabanay wax xidhnaayeen soo dagaalamay wax u jireen warwasi barti baa laga soo saaray horta kolkaasaa la yidhi ma ina hebel baa ina xuseen biix wanaanays ina xuseen baa la yidhaha aabahay uu garanaya xasan guuleed odaashan iyo dad isku qaranaya isla waxaa la yidhi alalaha dee isagu waa reer Jabuuti maxaa waxa dee waxa la yidhi soo xaggaa bariga hore lama tegi jiray isticmaal ka hor waa faraaq laga qaadan lahaa halas jeesh sharcigiis sharci Jabuuti lagu siiyay marka maya waa soo socotay dhigso waan iska degay waa la yeeray dawladdu ayaa waxa lagu yidhi soo maado marka dee mayhi qoladii safarda ahayd ha gudul wareegto nin tiiran adag qabsada lama qaadi karo dee qoladii Jabuuti waxay yidhahdeen shaydaanka iska naar hadda dulsa hadda reer Jabuuti cid ku diido sharciga wadeeday reer Jabuuti aatay wax dalkaaga iimaanso halkan iska joog khaliik rabsha waxaa dawladda aan jaarka naga soo noolnahay annaga raggaa la dagaalamaya don't contact them xidhiidh hala samayn ma la samayn haddaad dawlad ku joogso aykaas haddii kale didar waxaad ku hadiraysaa dalkaasoo herdaba ku fuulaya ma caddahay haa way cadda maxaad bika doonaysaa waxaad doonayaa inaan hawl baa iga taala abdabe baasaboorkana la isiiyo fiisana la raadiyo waay labadii baa la isiiyey waa iska dhoofay abadaba dib ugu noqtay markiiba waay safaaradda hay ugu dhuusto waay safaaradda adoon reer Jabuuti ha deetana halkaa markaan tegeen saa isu hubsaday ayuun baan dee Ethiopian Airlines ka goostay waay haddee oo abadaba timaada baasaboorkana wax lagu galaa bilaa fiisa loo Jabuuteen ha arrinta marka deg idaacadda yare waxay wareystay oran jiray halkan waxaa la iga yeelan ka heersiiyey aroortii waa sharci soo saaray 4 ku jira laga kasal garay dhalashada Jabuutiga dhalashadii Jabuuti baa laga baabiyey aniga gabax xasan yuris ba adu soconde baarkay Yuusufkii maxaa loo jeeday Yuusufkii kan imkana joogo war intii meesha wixii dee joogay ku dhalashada Jabuuti baad haydeen yaa la yidhi ha kuwa ila Jabuuti kama dabaalan karto safaaradda dacwadeedii ha wax la wax reeyo teen midkii baa baashan ugu jabada midkii ugu abuuray xasan gurid kama dabaalan kare marka mushkiladaadii waxay gelisay not only tii Soomaalida Jabuuti bay hataa oo taasina saas ay noqotay oo maanta kale imka sharciyeed loo soo jabaaday kayta kale qoriga ma qaatay mariya soo qaad meel baa ku socda hargeysa ku socda sidoo dee ku tagay saasa dibadda ku tagay halkii baan ku tagay ragga waan u tagay marka waxa lagu waa nasatay farad hore qabo faradka hore toos baan u tagay toona magaalada ma joogay ilaa eedhiirkan ka soo galay deemesh magaalada ma arag faradku mad fadhiyo ma soo galin ma soo May 1985 baan markaa gashay Ethiopia waxaan taas ayaad ka haysatay ma raay wax ku noqonaya adduunyada waxaan u nabcaa oo ugu baqabada xabash iyo libax ninkan caay cadowga war wax soo xuday waa xabash kama naxayna kan u jiray ana xabashana aragay ma aniga dhaxay cadawda haysi 77 ninka ugu waxa ugu weyn la dhacay baa soo gahay haddana dee waa tan la tagay diyaaradda markii laga degay ayaa gabadh horta diyaaradda xukman cun horta ku sheegay baqa daraadeed iyo environmentka ugu adkaaday kimistaas ay ugu horeysay maalintaas waashan jaraydo oo markii dambe aad u bartay waan diiday anoo biyana cabin oo tolo maxay noqon ku taagan ayaa dawladda ka degtay ayda degtay moment aan baqda nolosha taas ay ugu adkayd way habsida ugu markaas ugu dhacday markaan ka degay dadkii kuyugu saab soo galay baasjarkii ayay gabadh dhar ramaadi dambas xiran oo gaagaaban
halkaa ugu joogto ها ayaa safkii xafiiskaad sii istaagtay ase magacayga yeedhisay koosaan madax xali tahay tee soo baydh asaan kuu dhamaatay خلاص بقت الماضي saasay kordoreer ee wala laxatay waan daba galay nin safaari xidhan oo xafiis soo fadhiya ayaa la ii geeyey aan halkan fadhiistay koob yaroo bunoo ka geeryaraa la ii dhiibay oo miyuu iga degaya deetana afgaris buu kula hadlay واي wuxuu guri kusoo dhowow Ethiopia واي soo matid ninka haa fayl buu soo saaray وانا كسوقي لا maalintii u dambeysay eed garaacdeen baashan kaala mardha ها dadkii ku dhintay ها iyo wuxuu ku burburay oo da intii ciidanka ahayd mooye intii kale iyo wuxuu akhriyay wuxuu sheegayay ayuu yidhi waxaa soo khasaaraa dhacay laakiin nasiib daro cadaawad bilaa macno ahayd taana waad garaacday intaana waad garaacday waxay ahayd cuduraan iyo mise isfaham la-aad baynu waxa u samaynay Ethiopia halkan waxaa taala inaan wixii hore ilowno inaan walaaltinimo iyo nabad bilowno halkana maanta ammaan baad ku joogtaa waxaas waa beej xirmay nabad baynu ku joogaynaa deetana waxaan waa gunaanade والله وعذاب والله وهذا haddii ay ka dhab tahay maxaa siiraaye iyo raggii madaxda ahaa dee xisbiga iyo وين dee maxay ula joogi waaye يسالتي ilan waxaa lagu soo ritay halka yare وكان بمم كده تورتي من قرعدين intuu adigu aqriyo waxaasaad samaysay haddii ay ka dhab tahay wanaagga ninkana uu kuu sheegayo iskuna tegi muxuu raggii kale marka wuxuu yihi madaxdii axmed siraaye koosaar ayaa kuu sii ay hudheel galmad halkan jooga waan kuu geyn doonaa markaa waa la dhawaa tana kafee ma cabin oo meel cabi karaya ka ma cabaan kura kafee waxbaan yareyn mogti markuu intii yidhi soo dhaweeyey inantina uu yeedhay darawal baa loo yeedhay gaari bay saareen magaalada soo dhex mariyey arigiis si lagu soo raacinayo waxaan soo daray ragga ugu horreeya halkan kuu sheegaya ee waqtiga soo booday nin aan kaasaa jiro maxamed cabdi loola jiray macallin baa hawlanta barco ku dhintay yuusuf kale labada isku naas baynu waxa xagga dambe fadhiyo markaa ay ii gudbinayaan iyo laba nin kale aan garanayn jabhadi ahaa saddex ma jooxayaan waxaa la igay siraayo koosaar shiine allahuma salli calaa maxamed iyo 10 madax licdo kale gaba war waxaan ku rag badan oo meesha fadhiya darto markaas nolosha ku soo noqotay markaas nolosha ku soo noqotay wixii lagu tusay dadka taas waa tay igu riday magaalada iska cararo horta magaalada hore u dhaaf mar qoray qato sidoo ka gudbay sidoo ka gudbay nolol cusub oo inaan ka sheekeyn karayn oo ifi aakhira ah oo ninkayga mareykanka kabala aan iyo gogol aan iyo cunto la'aan dib u bilaaba iyo biyo la'aan ayuu ku dheer hore u taqaani markii inta aad ardayga noqon baad sii taqaani oo nasiib intaasna dhinac kale ku noqonaysa jiraan markaas oo geerayaan haystay taasi waa run laakiin xarajada ma gelin 1985 laga bilaabo noloshaadu way isbedeshay saas sheegayso qoladii Soomaalidu inteeda badan ay nacbayd aduna aad nacbayd ee u tagtay ciidankii aad u dhaaratay dawladdaadiina waad ka tagtay oo tii cadowga lahayd bal soo safatay waxa kale ka soo jeestay maxaad sidee kula ahayd markaa waad ii sheegtay dareenkaaga gaarka ah kalsoonidaad isku qabtay inaad ama cadaawada intaa leeg ee qolada kugu gashay maxaa kugu dhaliyay ee kugu kalifay horta way jawaabtu way gaabantay eray aad ku jirtaa ciidanka aad u dhaaratay dhaartiyaa ka baxay maanayaa ka baxay mise dowladda aan dhaartaa ka baxday dowladda ka baxday markii ninkii haddaba xabad lagu dhuftay markii xuquuq la isu diiday markii dadkii dalka wada lahaa qolana ay noqotay citizens qolana ay noqotay half citizens muwaadiniin qolana muwaadiniin nusa ay noqotay waxaa la tahay in la dagaalameen xalaal ahayd utagida Ethiopia waxay la tahay inay ahayd guul Ilaahay nagu hanuuniyay inaan qorsheyn way geeska Afrika cadaawad dhowr kun oo sano ka jirtay oo ay ahayd in laga bedelo ragii taajabay baan ee geeska Afrika haddii cadaawadaas ku dhismayd nacayb isira iyo waxaan la yiraahdaa prejudice ninkaas oo ku cadow wuxuu inaad ku qaraato iyo historical ba annaga dhibka saar soo markii aanu dubinay inay sax ahayd talaabadaas xabashi ahmar uma loo leeyahay intii Ilaahay inuu hornay waxaad ku garanaysaa fiirada ka soo dambeeyay waxa ka dhacay geeska Afrika isdhexgalka nabadda isoo golaanshaha
qofka yar laba tirka Soomaaliga maanta ee waxa ogeyn maanta weydii Itoobiya ku xigay dadka Itoobiya ku horeeyay Addis Ababa ayuu ka aaminsan Hargeysa Muqdisho kana badin kii Itoobiyaanka ah ee Soomaali qushaasha oran jiray qoriga la cararayay maanta ilaa berbera wax haysanay iyo ilaa xamar marka dawladdeena baa qaldantay markay qaldantayna haddii qori lagu qabto dhan baad u carari haddii aan soo talawnay baarir baan jabin waliba waxaan qabaa inay Soomaalida taariikhdeeda ku xusto arrintaasi oo baal dahab geeska Afrika geliso jabada loo jiray SSDF oo horeysay iyo taasan iyo kuwii naga dambeeyay ma garanaysaa inay ahayd taariikhdii nabadda geeska Afrika soo celisay walaalahan imika jira Itoobiyaanka iyo wadaadada iyo waxan waa tu kale laakiin waxa abuurmay in la wada noolaan karo oo aan isra soo nacban karin oo haddii wax la isku hayaan si wada hadal loo geli karo marka dawladda aan dhaartay anu kama bixin iyadana kaga baxday way 1985 wixii ka dambeeyay hawdkii baad ha dabeedna jabhadii aad u soo caraysay baad ha qaybtaadii qabsatay maxaa dhacay markaa intaa ka dambeysay ma dhammaan karaan hawlgalladii wax laga sheekeyn karaa intii ka horeysay 1988 oo aniga kulli inta ugu weynay aan wax ka weydiinaya ma hadda laba saddex meelood oo kamid ah waxyaalihii kuugu waaweynaaye masalan way arag ku ahaa hawlgalladii aad fuliseen meelihii aad gasheen markay idinku yar dhib badnayd markii yani haddaad yar taabato horta wax laga sheekeyn kara maade waa maalmay qaadanaysa wax maskaxdaada ay u dhigatay iyo wax kala jira waxaan imid ana markayma oo sarkaal ahaan jiray oo askarigu islaamo oo adigoo si aad ka baqato war markaas kala xarbixay aad raado oo laga habadisto waxaan ka imid anigoo lacag qaata mushaar ah oo xaaskaygu waxay si kariyo oo guri degan haddaan guriga joogana miis saraakiileed aan tago wax lagu siiyo waxaan imid ciidan qorowdista oo aan kala sarreyn oo aan kala amar qaadan oo kii kale hadduu doono xabad ku dhufanayo waxaan imid ciidan lagu odhanaya ciidankii xukuna u tale oo kaba lahayn oo dhaxanta wuxuu ku wadaan lahayn oon rasaas siinayn oo raashinkaada reeraha nooga soo qaada madalka nooga soo boob waxaan u imid ciidan badankiisu aanu maalin qura digtoonow la odhan iyo ciidan iyo qorigaagu caynkaasu yihi oo ragga qaarkii 5 sano 6 sano jabadii hore ee jabadaha galbeed loo jeedo Soomaali galbeed maxamed cali ka soo horreeyay maxamed cali soo tabareeno iyagoo yar jabada qortay noloshooda jabada tahay waxaanu niman amarku ceeblay oo amarkiisa iyo kala dambeyntu aan maqlin qisam ku siinayaa marka dhowr cisho joogay baan sahan isla gal horta socodkeena bartay u noqotay way ilaan barigan tabar ku jiray in la sarkaalka bay gudubso orod iyo lug marka imika halka doonaysa lagu maqaysa gaari ma jiradii marka waana lagu tiin bartaadee oo miisaanka rida ana islasay soo jeena soo xidna laakiin yelkada waan isku adkaysaa shay daba meel dib ilaa baan joogay habeenkii dambe ayaan kaxay 10 oo sahana oo rag badan ay ka dhoolay qaaranteen way dhagax la ilaahay baa ku jira way nin loo oran jiray isagoo sayrax ku dhintay oo afweena loo jiray way waxaan qoladii maxamed cali ka rag meesha ragii afraad ninka loo keenaba way tijaabiya way bahadina inta wax garanay waxa taan deen soo lagu ay mugtay amba amaahna soo gaay habeenkan qureen waxaan alla baa soo arbishay way marka waanad kamid noqotaa tiraa yes is kamid baan waan warweynaa wir goodeer sidoo ku dhaqaajin waa si to kilometer oo inta jirta oo si arfiidkii meeshii baan ku dhawaanay xogay baan arbishno waxaan yeerin baan maray adeegana hurdada u diid way on soo noqon togan soo taloon saacad marka waa saddexdii labadii markii meelaha markaanu cabaar soo soconay meel fa islaamada ku soo dhowrahayba ayaa la dhamay way dhamay way markaas xagan u socona waxaan in celiyo nood soo kaca noqon navigator baa too wax mayna waxaan istaa campus kay balaad u raacdo waa campuska way markaasaan ku yiraahdeen in warqadu wada markaas la yiraahdaa waa faqas inoo soo diray wuxuu doonayaa inuu la xareeyo
warmaha waanu qaldanay cadow baynu ku noqonay warmaha xaggan u noqon eryaamo iyo dhidi waxbaa jira mogta baalka waanu ka dhigo waxaan warma kan basoo kan xaggan u jeedo markaasay yidhahdeen maxay bartaadan yar haa qaado warna wadi anaga doonaysa inaad faqash dhogeysa iyo adiga qori dabada lagu qabto ha korasaan guri ma seexnaa waan dhawaasanahay waagan oo yar bariyay waa la isku qabto waxay ha haddii aad adoo dhamay aad sir duuduubto haba gam ine waad kala birmaysa war intii waagi bariyay kaahi caadda xagga ka soo baxay iyagiiba ku kaxayn gaadhay kuu geyn gaadhay korasaan wallahi waa runtaada oon ka yaacay way ku ixtiraam baageeraan u soo guuray may waxba ma ictiraafin way markaan way kabad haddana barnaamijkii la waday ayay leexshada maan ku iri waxaa la weerarayaa alle baday ciidanka sanadka galab casran soo fariistay iyagii waan shiriyay warqad baan soo qamaa baasay halkaa wada marta halkaa xabaala mara halkaas waa dergad halkaa meena ku aasan kalaasi ugu yiri kii ciidanka haystay adoo alle baday ma aragtay way bari ayadoo magaalahan bay gudbay soo gaaraan raaci jiray way kusul iminka ma aragtay bariyahan xabaalaha waxaad sheegaysaa dhismahanay dadka le saan ku iri maayo saada waxaad sheegaysaa xagad keentay kursaan warbixintii warkii la ii keenay ayaan dee kaartada ka sameeyey maal kursul murqada yar haa oo meel halka ku jirta kursaan dergada dhinaceeda xabaasha say u dhaxaysa way kursul oo halka meed garanaysa kursul haa waa tan la inoo sheegay kursul hadaa ka soo saarno way adigu ka soo saar ka saar meel aad tiigso bal waxaan uga hadlay iyaga ninkan horta ragga imika waa tale ciidamo way tababarteen waxay barteen oo ka sheegay wixii noolaa ma garanaysa markaa nimanka halkaa aan iskaga soo bilownay ayay u waxay dhahdeen way noo gebi jireen oo waan maagi jireen markii dambe anigu waan iskala qabsaday oo markii warmay ku ictiraaf adu markii waxaan ku ictiraafeen ila ereyga ictiraafku dhacdo maxaa ku dheeraa ictiraaf waxay ka baahan markii aan meel walba garan halka hal baa bari gaga luntay halkaana beri waanu degnay halkaana beri aan yaraabana garashadii dhulka iyo deegaanka waxaa loo lahaa kan maraykan iyo magaalada waxbu ka yimi markaasaan isla qabsanay taasi waa waxyaalihii yara faniga ahay magaalada markaasay ku aamineen markii dad wax cilmiya u keentay ee dambe ee magaranaysaa taasi waa waxyaalihii yara faniga ahay dadka maarata waxyaalaha dee isa afgarawaaga ahaa lakin baasha jawaada la yidhahdaa waa qof islaami wax ku degdega maaha marka waxaad dhulka iska dhigtay aqoontii militariga soo qaadatay iyo tii iskuul sarkaalnimadaadii waxaas oo tuuraysa wixii oo dhan dhulkaad soo dib baad u jabhadaysaa dee maxaad sameyn oo dabeedna waa duruufta cusubad la qabsatay marka waxaad wadaa ciidan aan raashin lahayn oon hub aanad siinayn oo aan disblin lahayn oo aan ismaq lahayn oo iswada siman wada leega oo idinku dagaal ku jira saacaddaa nin waliba wuxuu doono uu go-aamin karo marka waxaanu qorshaysanay taas waa waxyaalaha markaan waxyaalaha ka xasuustay intii ugu adkay tababar baan yaa bilaabay si fiican bay iga qaateen ciidan baa ka abuurmay si fiican isu maqlaan jaanta isla helay deetana waxaanu taasanay inaan marka hore raacyada hore ee cadowga naafayno marka hore aanu sahankiisa iska joojino aan iska qabano waanu ku guulaysanay haddana waxaan xeryihii uu ku firdhiyey xadka ayaanu naafayn oonu sas ku ridnay oonu habeen qudha hordo diid anaga rag ragaa dhintay marka aad baad ka madaxayd adigu hargeysa ka mid noqotay aaggan hargeysa ku aadan kabacdina qorshaha labaad waxaa sanad damana inaan gaadho dhumucda hore ilaa 10 kilomitr ee guutada wuxuu dhigayaa 13 ayuu uru dhigayaa xaruntiisa hurumahana xag horaa loo soo fidiyey marka inaan hurumahaas agta mariyo oo naafeeyo kabacdina xeryaha batalyanada ururada oo 13 kilomitr xad ka hooseysa qorshahaas asana qaatay warkaasaan xadka dhanka bilowday deetana marka la soo galay dalka iyaga oo nimanku wana sas qaaday oo meeno iyo mir iyo ugaarsi aanu kala daalay oo nimankii deeleen maxaa noo dhexeeyey anigu meelaan ku noqdo male anu ama waan dhataa ama waan dalka galaa meelaan ku laabta ma laha laakiin ninkan xawr buu ka yimid naag buu soo gursaday ama caruur buu gurigiisa isleeyay lacag buu raadinay adiga way ka horeeya waxa isagu lacag aniga hubkiisuna kan istaayay gurigayga waa kan haysto waan ku socdaadee isaga ninkan iga soo horjeeda wuxuu doonayaa inuu meeshan ka dhaqaalaysto oo uu dadkan dagaal ama dowladda lacag ka qaado dagaal baa socda uu kharash badan ka helo ama ummadan badee uu boobo waa nin meesha loo ka doonaya ana igama dhaxayso death or life marka labada ciisaas kala duwan waa kuwa jirda waan dhacsayaaliyo waxba karin baa la saayo maga badan waa nin gurigiisa la haysto weel ku noqdo haysto nafahaysa indhaha ma madaxa ku casaalaya way halkan ka soo galaa hadaba waxaa runtaa ayaan ku sii daalin meesha iigu daran baa kusoo gelinaya imka 1900 iyo 88 waxaa ka dhacday taariikh
aan muddo hore u dhicin geeska africa. adigu waxaad ka mid ah ciidankii soo galay magaalo madaxdii labaad ee soomaaliya ay lahayd markaa. waxaad usoo joogtay iyadoo dhimatay oo dhulka lala simay, qaybtaadana ood ka qaadatay ood ku lahayd. ciidankaagii cirka ayaa adiga intay airportkii kasoo kacay adiga ku garaacayay, madaafiic baa lagula dhacay. waxaad markhaati ka hayd taliskii waxaad ahayd waxaa u babac dhigay qaybtii la odhan jiray 26aad ee ciidankii soomaaliya ugu xooga weynaa, oo weliba lagu soo kordhiyey ciidamadii soomaaliya ay lahayd oo dhan. markii dambe ayaad idinkoo tiradiina ilaa 3,000 lagu qiyaaso oo 1,500 iyo 1,500 isu qaybiyey weliba, oo itaalkiina iyo xisaabtaad lahaydeen dad u babac dhigteen. miyaad waalaydeen? ma la odhan karaa yani intiina noole ilaahunba iska nooleeye dad abdala maydaan ahayn oo wax waalan badaydeen oo magaranaysaa iska soo bareeray unoo yidhi un naflacaari oo yidhi masalan waxbay naga soo hadhin, mise kalsooni kalood qabteen baa jirtay? sidee wax u dhaceen? soo xudhaceen dee horta waa la ku dul heshiiyey weliba oo labadii nin ee cadow colka ahaa okay ku dul heshiiyey. markaan si samre si kooban kugu ii kala saaro ha markay labada go-aankaad qaadateen baan go-aanka doonayay. qaadaan ku sheegay. horta markii SNM ay buuraha gashay ayaa afweynay mingistaba ay ka yaabeen, waayo SNM waxaa xisbi shacbi oo isku kalsoon. ilaahu naxariisto rag badan baa ku dhintay buuraha weliba dhinaca galbeedka boqol gaaray wada mutacalimiina, laakiin dhiiranaantoodaas waxay keentay in la ogaado dadkan SNMT inay ka duwan yihiin jabadaha kale oo go-aan leeyihiin inay ku dhintaan iyo inay dalka qabsaan. mingistana waxaa kusoo shiday ninkan imika Malaysia iyo colkiisii waa ku heshiiyey. annaga qorshaha wuxuu ahaa dagaalkii hore ee buurahaanu galnay markaanu akrinay qalad buu ahaa inaan buuraha galna, waayo raggi meel cudurka gaadhantay haddii intaasi magaalo madaxa Hargeysa dhexdeeda ku dhiman lahayd waanu isku herdami lahayd. deetana waxaa la qorshay inaanu abuuro ciidan adag tababaran adkaysta inaanu magaalooyinka galno. processkii 70% noo dhammaaday 10% meelahaas noo harsan tahay ayay heshiiyeen. markaa meel aanu ka hinqano ayaanu joogno. dagaalka miyaynu buuraha galnaa miyaynu magaalada galnaa miseynu ka wareegnaa dee waa la isweydiinayay. waay horta ragga arrintaa ku dheganaa ee ra'yiga maanta iyana mar daba bur ku jabin lahaa ee ku dhiiranaa way badnaayeen. axmed ibraahim magaalada jooga ka mid ahaa, waay maxamed kaahin baa ka mid ahaa, waay ninka la yidhahdo ina cilmi galaan maxamed cilmi galaan oo war buurahan ku khasaaray inaga daayilaa baa ka mid ah, ibraahim dhegaweynaha ka mid ah. la iskuma diidin. waxaa taliska ayaa loo naxariistay xuseen sheekhii waa galotolantay iyo axmed mire iyo xasan yunis iyo go-aan xalaala ayay qaateen oo aan cabsi lahayn. ilaa haddii ninka horjooga kaa baqbaqdo waa basleeye xilliga adag. deetana waxaan weliba goosanon ku daray qoladii kale saraakiisha ay waa joogina inay saraakiishu madaxa ugu horeyso saanu ciidanku soo maagay. saasaa idinku wargashaan axmed miro oo abaanduulaha ahaa iyo maxamed kaahin oo hogaamiyay Burco, waay aniga iyo ibraahim iyo hebel oo dhamino Hargeysa maxamed cilmi galaan axmed dhagax laba qaybood baad markaa isu qaybiseen. wadalabada qowda ciidanku ahaa. waxa weeye qolona 27 bay gashay qolona 3 ka dambeysay. logistics problem baa ha maxaa dad badan baa taafas ka sameeya ma ahayn. waxa weeyaan wixii aanu haynay markii hore waxaanu sinay bariga, waayo jiid dheer bay marayeen iyagu. markaa shidaalkay ayaanu iga kuli markaas shidaalka soo qaatana Ethiopiankii baa naga xidhay. deetana waxa la sugeeyay noqotaan ha markaa shidaal tuuga ah iyaga wixii aanu haynay horaanu iyagu maadaama ay dee naga hor dhowaan waan dhownahay inaanu iyagu dee qaybta hore qaateen. kii aanu sugaynay markuu guddoomiyihiisa ilaahayna aqbalay ee uu saxeexay ee isagii la yidhi haddaba adag jirta adigu inta aan geed baan kaga hoos saxeexay hoostiya baad dee haa laakiin waxay isagu niman raaci kareen Itoobiya ma joogi karin markaa aanu baxaadee degdeg intaan anugu gelin meesha intiidan gelin bal isa degdeg saacadaha ka baxay. Itoobiya waxa lagu soo amray in ciidankana la soo celiyo isagana dee sida wala xilaya hadii dee aad gashaan soo kuma lahayn maxamed xajuur baan ku waa noqonaya bee taamla ku ajiraya isla magistu beel soo sheeg uu waa noqonaya waa ciidanka soo celinaya dee tara waan u saacada gudi ku dhaafada magiste ha ilaa heshiisku la soo galay ha ilaa mana diidi karay isagii kees dhiftays
kolkaa markii go-aankaa la gaaro laisku raacsan yahay oo dadka ka ariga la jooga iyo ka toban jirka iyo ka magaalada jooga iyo ka miyiga jooga iyo kuwa iyagaa markaa hubka siday waa laga sinaa sinaayana sidii buu ku qaatay dadkan faallada iyo waxbaa la dacaadeeya waxbaa la akhriyaa ma jirin qoladii taliska noo ahayd oo wasiir gaashanaga waxaa jaamac cali jaamac cali alla naxariistay rimabu xasan yuunus axmed mare iyaguna si xalaala go-aanka u qaatay raggaygii qaybaha hayana si wacan baan uga guddoonay marka hargeysa waxaa idin madaxa ahaa dhegaweyne afar dayib baa ku xigay afar kale adiga iyo dayib iyo maxamed cilmi galaan waxaa taliska magahayay markaa ibraahim dayibna baanduuluha anuu sahankaan joogay lagu magacaabay maxamed cabdillahi askar operation ku ah xuunshu cabdiraxmaan aw cali dee waa la badnaa intaasoo talis axmed dhagax iyo maxamed iyo maxamed cilmi laba guutay kala wateen oo markaa loo soo dhiibay markaa dee waa laisku nimba ninka la yidhaha xagga dambe mar ama ka joog ama gaariga dambe raac ama mari karay badi abadan ninna muddoon in laga adiga madaxa xilan wuxuu jiraa xilma haya aanu qoligan qaadan adu helo xilka hay xaqiiqo wey marka waayo raggii soo tani ugu weynaa maahayn maxamed cilmi axmed amre iyo kaan iyaga xabad ugu hor dhacday markii aada soo baxdeen basal hargeysa saad usoo gasheen iyo ciidamadaad soo dhaafteen iyo sheekadaa anuu tiidii hargeysanka ayaan ka warramaya waay sahankada waddada anaa qoray waay oo ciidan u diray waay waddo cusbaan jeexno wadda koontrabaan hore aanu mari jirin waay waxaanu qorshaysanay waayo araggii hore intay ahayd inaanu kowda maalnimo galno aanu dhaqaaqno deetana aanu galo lixda 4 saacadood aanu socono ciidan fara badan baanu hayn baabuurtaa naga duugahayd oo baabuur sheebeel ahayd waxaan u talagalay diyaaraddu inay hadday u bataan marna duqayso markaana aan ku beeganay makaan yaro adagoo aanu marro caydaroosh ayaan maraynay dabata xantaa markaa inaa diyaaraddu wax badan naga qaadeen mar labaadna aan ceed u dhacayso maxaan u daran habeenkii waxaan ogaan qoladanu habeenkii magaalada kaga adagnahay oo magaaladu raacayso aanu kala naqaano oonu habeenkii naafayn karayna iyaga subaxnimo dambana aanu isku waabarisanay anagoo dee magaalada markaa midkiiba waxaad kala qaadeen waay qorshihii kusoo dhaqaajinay kowdii maalinimo sidii bay u dhacday markaanu soo galay meel fahal dhahabay diyaaraddii nagu soo caashaqday way taragaraysay waxbaa ka xumaado waxba naguma ridin jidgooday noo dhigeen labada ciidan ee cidarooshibaa gaaro noo keenay waay waanu jiirnay waxaan loo kulmo oo nahakiyey cabaar ciidan gurmud ka ahaa ku socday ka soo baxay awdar oo tawaangi watay borba ka yimid koowaad oo jidgooyadaydii dhexe aanu gebri dhexda dhigna ka soo horreeyey ayaanu cabaar dhowr 5 meelaha naga diwa ciidan ugu riday deetana waddada xagal baan ka soo raacday xagal oo daroonteedu aad taqaano aan hore loo marin rafahayd gaarigu naga xumaan iyo waan si wanaagay saddexda aruurna soo taagna taliska guud intaan waddada shaqo hore oo marta buurteena xiis leedo dusheeda waddadii sheekh Cumar sameyn jiray garanaya ma ina tii orgalaha la oran jiray xagal markaan ku soo dhacnay ayaanu sheekh Cumar soo hormar isha colosh buurteena xiis leedo raas ka bilowna waan ku kala baxnay xagga galbeedka xigta iyo taliska guud idinkoo wada socday inta dhammaantayo buurtana way noogu luudaysaa leeg baad ahayd marka qiyaas 1200 nin bano iyo dhowr 40 gaari markaa baabuurtan leerkaan u daminay oon kaga soo raacnay baabuurtan lama socon ragguna wuu lugeynayay oo filooyin baan hareer ka jiray markii hore waxaan oo qorshaysnaa haddii aanay qolaasna hakinin markaanu soo joogno masalaha in ciidankii loo jiray sancaani oo watay allah u naxariistay aadan caddi cishadu ta aastay iyo ninkii weerar loo jiray islaha u naxariistay inay iyagu airportka aamusiyaan waa saddexaad ku tala galay baa iyadoo caad la qabatay oo xuseen dheeriya ay wateen ninkii loo jiray jawga dhintay iyo way sacadayo marka waxay inaanu iyaga qoladan madaarka intay la joogta ay naga aamusiyaan inta kale aan ku dhaadhacnaa in magaalada qaybta laakiin qoladaasaan hakisay deetana qolo kaloo taangeelaa iyana airportka naga xidhay deetana dhammaantay waxaan kusoo dhaadhacnay xagal isku meel noqotaa ma noqotay deetana toos maan u weeraray qaybta dee miyuu ku akaday morgan deetana markii waxaanu qabanay birjeex horta xero dhan habeenka waan ka saaray waay maxaa nagu dhacdo anagana jabiyey isgaarsiin la-aan raadiyadina wakti toka oo isku xidhay damaan ciidanku isma ogaa waad kala iyagii ma jabeen airportka isugu guureen annagana waagi baa nagu beriyey idinkoo qoloba meel joogto hadda anaga waa isku qaldamayna xitaa rag baan iska layna anagu waayo rag baa gawaadhii ay soo qabsadeen kasoo qabsadeen qoladin faqashtaa aanu iyagii moodnay oon isaga ku dhufan deetana waagi markuu noo beriyey markaa waxaad soo gasheen 31 may yaad soo gasheen halkiisa cabaar 3 labadii markii goortan laydinku bilaabay madaafiicda iyo waan kusoo wada waa goorma degdeg
habeenkii saa buu kalumay ها sida aan u sheegnay dhacdo anagu ilaa waxaan ahaan dambiir yare markaan soo galay magaalada wixii hal naaskeed gaarayay wiil iyo gabadha waxa la xisaabaa bidaar iyo cirna u baqday habeenka واي waxba ah wadiin oday ciri bidaar واي wali xidhan yaraha wali hablu dhigay ayaa dhaw xidhay iyaga dhaawacay soo qaaday iyaga kilo way soo xiray oo qariyay iyaga ciidka isku xidhay reerto inta dibuu soo kaxaya ayaa waxa xagga idaacadda waxa ku jeesan inuu qabto marka hore in cilmi galaan axmed yaxna central suuq ahaa isaga waxa lagu hakiyay guuleed xoogga kale ku dhaafay واي marka in maxamed cilmi galaan guutay saacana u talaabay qaybta idaacadda واي aadan cadde markii ay halkan kaga xoog badan kaga yimid culays badan halkan birjeex برجح ayuu ku biiray maxamed cilmi dhammaantay waxaan xoojinay idaacaddii agaarkeeda anigii colan ku jiraa dhexdaan lagu kala gooyo waagaa noogu bariyay meesha la yidhahdo halkan dooxa ee baar gurad dhinaciisa shishe xerdigaagtii ayaa noogu soo baxday toban ay cagweyn anaga cabdiraxmaan cali ninka la xuusho aniga huwa waxa dhinac baan u gooday malaha taniyan isku helay واي bartaasaan kala geynay sheedaanu ka dhacnay mid soor bidaara mid baan isku dilay meesha maxay ahayd in aamin beerteeda col iska helay lacagtaan u hufnay waxaanu qabanay maxaan ku dhahay meesha la yidhahdo biyashiina واي halkaa damar u baxna si aanu ciidanka kala marka maalmihii hore iyaguna wajah wareer anagu waan wada أذكر وجه laakiin anaga dadkii baan caawiyey marka wax lagu soo ururay حقيني حقيني oo والله sancaan iyo guutadii la oran jiray in cilmi galaan aadan caddaha iyo cilmi galaan iyo tiira wax ku biirtay ayaa dee halkaa xajistay markaasaa la isku soo noqon labaad markii aanu ku jiray dhowr sano ayaa waxaanu gaarnay total واي bay saddex bishor ayaa raggi naga wada dhaawacmay weliba siiba saraakiisha wax dhintay wax dhaawacay noqday saddex bilow jiray lixdankii cisho u dambeeyey taliska anaa kaligay joogo saraakiisha badankooda wax dhaawac iyo ani xuseen dheere loo naxariistay oo caada iga soo وعدد لك يمي oo caada igu soo gaaray dabeeto waxaan gaaray nin cabdilalo jir alla naxariis ayaa ciidan watay xasan baalkan xasan gane muxuu ahaa maxay gane iyo sancaane qayb u weyn ayaa tagtay total ciidankii saddexaad ee xuseen dheere watay اه oo xoog lahaa iyo ayaa ninka waysa cadda iyo ayaa nagaga rogay oo iyaguna waxay la kaceen beeraha intii hargeysa galeen ayay afraatanaad qabteen oo airportka u dhawaadeen deetana wafsigii calasdari waxay ka soo wareegeen inaan naxaro dusha واي واي marka waxaa noo laabnayd inaanu ama xaggan markaan joogno naasa hablood Ha. qorshayga wuxuu ahaa اه in saddexaad aanu ka soo rogno dusha واي oo inaan naxaro dushiisa اه aanu dee berjey halkaa ka goyno واي ciidanka sayid cali oo iyo xaggan way ku balaaratay jiidina aanu ka tallaabino birish agtiisa واي oonu cusbaalka qabsano dee raggii baa naga naafoobay oo boqolkiiba nin rag dhamaaday deetna waxaana soo gala geel jirihii nimankii nagaya la baxay oo bari iyo galbeed hargeysa afarteeda gooyo nin walo qori qaadi karayba halkiisu kasoo dhaqaaqay واي haddii afart gooya magaalada boqolaal raga ku gaari wata ku qarmac wata ku hilib wata ku lugeynaya ku ordaaya يديم wado wal oo hargeysa ka baxda iyo dhinac walba nin walo halku sagana ka maqlay ee qorigiisa soo qaaday afar joog markaasuu ciidan kumaan kun isoo taagay dabeeto waa markaa markay bilaabayaan ay ogaadeen infantry in dadkii dee dagaalamaya dadkii oo dhan dagaalamayo Ha. maca shicibkii ha ayay amarkaa bixiyeen ninkaa odayga ahaa sabtar maalintii imsaad bay ahayd marka qiyaastii in koob iyo tobankii ahayd baan u malanaya juun wiigii ugu horreeyay bahay waa ii qorreedoo beri hore la weydiiye waa wanaayey ha laakiin koob iyo toban marka waxaan arkay cajalad taliskii ma garanaysaa markaa joogay ay iska duubeen iyaga waan kula hayaa tan uu maalkii oo garaacayo la yaab leh oo ma garanaysaa Tan dee ay garaacayaan. malaha waxay islahayn dee la heli maayey sababtana axmed warsame iyo iyo Maalkii ma- iskeedu. Awiskeedu iyo. ha uu tilmaamayo madaafiicda ee Waa taan madaafiicda la marka la dhacay xidhay- magaaladii oo qurux badan inta lagu tuso haddana la dhac- marka Deme- waxaan doonayaa inaan ogaado maadaama aad taliska ahayd nin military ahayd garan karayso qiyaastii military ahaan awooddii ama wixii lagu isticmaalay meeshaas markhaati ma doonto weeye xagga ciid wax laga soo ridayay inaanay isku proportion ahayn isku level ahayn wixii idinku aad ridayseen iyo waxay dee igu soo ridayeen
wuxuu idinku soo dhacayay qiyaas markaad qiyaasto siday u bilowdeen goormaysa bilowdeen xaggee la eegtay anu markaa raggii taliska hayay egoor u dhaawacma oo maxamed cimgala ugu dhaawacma oo dhagax ugu dhaawacma taliska aniga usoo baxsay iyo xuseen dheer markaa iga yimid xaggii cadaadii kaana tani ka ahaa lixdanka cishoo dambeeye ay balaadu dhacday habeenkaan u yarahay 30-40 miidan qaadayay iyo 50 dhaawac ah waa intaan soo helo ee ciidankayga iyo intuu aqalada ku dumaayay iyo inta umul iyo oday iyo islaanay iska dhaaf inaan ogeynba ee maal dambe halka mid baa yaale jawaan ku duuba ahayd yani ay cunay marka habeenan 60 qaaday dhaawac miida askartaadii ah jabhadiya ragga hogista ila kuwi dambe soo galay ribiyana waa shadi mugti habeenka aan u nasto dhowr toban qaadi misteed miida dhaawac intaas ka wadna intaas waxaan qoristay anigu aan garanay aagga ku jiraan aan markay ku dhacday wada socday laga soo qaadayo laakiin guryaha dumaya iyo dadka ku dhex aasan ku xabaalman ilaahum bay ogaan kara waa marmar qof ku baado halkan in dhaawac baa yaala ama guri caruur iyo islaaniya wax ku meey kaalay soo gurmaday ayaa kamid sidee markaa rasaasta inta badan goormaal 10kii bisha meelaha June ayaa tidhi waa la bilaabay ilaa iyo isbiig socotay amarkana waxa bixiyay dabka culusaha halistaayo dawati cali sawtar baa bixiyay walaal lama lahayn uu bixiyo waa tii loo soo joog way dabka culusaha naafada maalintii la bilaabay raadishan ka maqnay dadna waxa la bilaabay ciidan dhageysanayeen anagu rakaal bana soo dhageysan warkooda anagu soo raadiyo xidhan maana lahayn oo dhanna faa'iido nooga dhanna khasaare nooga hayd dadna waxa la bilaabay 3 jeer baa joogay ama ilaa wajah xayana inay 3 maalintii 6 saacadood dush laga garaacdo yaradu in ka badan boqol madfacna waa lagu soo jiiyay oo madfac kala jaadka magaalada ma kala aan magaciyu sheegaya wuxuu leeyahay qaybta koowaad ma karmay daa sodon waa ka dheera 20ka ma sodon hawsar ay nooc hadii soo qiyaaseen dad ridis kon qiyaasto waxa ku tala galeen every 1 feet ama 1 meter magaalada halkii laabo ee amaankii mitir ee dhulka kamidaba magaalada Hargeysa mid ku dhaco marka arooyinka kaasa noo qoraa idinku maxaad ridayseen marka anigu waxa ugu weyn riday waxa ahaa qori taranta oo kan aan taariikh nafta iyo baalkan la yiraahdo ee hoobiyaha yaryar oo dhowr xabaan haystay oo qoladayna teknikada kulmood meel oo aan oran jiray daarid shod saara oo kolka anagu manan rastana soo wadana haysan marka waxaan leeyahay jiray ama gaaray ama meel tala soo hubno dhibicda roobka maarta barfandeed ku dhaco kare ama ku dhaco adii nasiibka ayaa dhacaysa marka taa imika imisa socotay baashaas ilaa August July iyo June iyo July iyo August iyo September dhow toonkeed ilaa bisadan kula aadan dadka iska daayay ilaa noqday ilaa ku dhamaaday ciidanka aan la galay dee boqolkiiba 6 ma dhimasho noqday saraakiishii iyo raggii madax joogay magaalada wixii shicibaan dee inta dhimatay konton kun bay ku qiyaaseen dee qoladan wax xisaabtay inta ahayd mooyaan hanti iska dhaaftay iyada waa magaalada loo laaytay wataa wax maafiic wax naga daraa waxna lagu soo jeeyay 10 jabhadood dhow jabhadaha ka xun ciidamada militariga way iyo ilaa 20 taangi ama 30 taangi ee magaalada lagu soo jeeyay wado wada Hargeysa saa baxdaba taangi baa la soo geliyay bebe dab aan kala goyn ku soo furaay iyo jabhado 10 jabhadood oo to Yurba ay tahay ilaa 500 400 xisaab ay ku soo daayay baad markaa jabhado 10 gaaraya ilaa dee 5 guuto ciidana ilaa 30 taagi ku dhawaad bebeeyada iyo qoryaha reer kala jiifa iska dhaaf waa madafiic ku asawaaday laakiin tayr ma ka daran oo shaandha ayadu aan mid dhaafeen iyo BM iyo B3 ay baalan lahayd Starling organ ee aragtayna kunta ku dhacaan oo toon xabad dusha la soo saaray ee ruucay laakiin meel la baxna ma baxayno hal ku dhamaa waa maanta waxa hada imma fi baadinaha biisa wa imma fawqaha biisa war baashan ama dusheedu ma ciise lagu noolay ama gudaheeda la baxayo waa go'aan waa meel la baxay jirto goorma dhamaatay war sheegadaas 13 bisha September yaanu ka baxnay iyad ka baxday magaalada yaan dib u baxno meesha biyaha leh biyashada dib u degnay way ciidanka laga yaraaday ciidankiiba aad uga riqbay markii dambe cuntada lagu yaraatay oo gaajada fara baatay oo dee waxba waan weyn
ila markaa magaalada bakharadeen yaanu soo gura jirnay guriga tiro dhamaynay biyihii baa gaas noqday aakhirkii markii khasaaraha intaa la gidin gaadhay dadkii qaxeen intii kalena miyiga gashay magaaladii gabaahiiray noqotay dabcan waanu aragnay sawiradeedii iyo muuqaalka yeelatay iyo dadka intii ku hadhay iyo waxay ku sheekeynayeen waxay yani isku lahayn waa kii safiiraa yimid oo dabeedna magaaladii baan haystaa markuu yidhi meeshaasi meel bini aadan ku noolyahay anagu maanaan arag magaalada horta meel kamaan tegin akhirkii laysku soo baxayo burcana waxaa ka dhacay dagaal adag dhulkii wada qabt intiisa badan wada qabateen waxaa laysla soo gaadhay 1990 markaa 2 sanadood ilaa 3 sanadood baad qawda isku hayseen waxaad samaysay USC oo idinka laftiinu aad dhasheen iyo tu kale oo oo bagrasa la yidhaha dabeedna bahasha xamar badgiiseen akhri ciidid baa noo yimid waay oo ka mid yihiin horta ciidamadu ku marna magaalada 10 kilomitir kama durka waay wali Hargeysa waa jeexjeex burca ma aha soo kale ma xaji karaan meel ugu badan male laakiin Hargeysa inta yar maslaha mooyaane galbeedkii uu qoyga jeexjeex tigre ku yimaayso dadna anaguna maalinta waan ku jiraa iyaguna habeenkii ku jiraa iyaguna maalinta sidii aan kaga saaray dad qoys kaashki khasaar badan u kala dadka wala baray calooliyo male ciir kuma qabno hadii dadka wala dhimato kiina ka dambeeya ka hawl badan kaasa ilaahay guush waana si maxagan kale markii aanu baxnay de Ethiopian dib baa la wada hadlo way ka yaabeen dadna ciidid baa yimid Siraayo waa la soo ogolaaday soo noqday hogaaminta dib loo bilaabay ninka Axmed Bartiis reeraa waa naga rogay oo ciidan xoog leh waxa ka horeeyay qolo kale oo taangi badan soo baxday oo hawiyo ha lix taangi iyo taariikhi orkiisi Umar ninka Umar Salaad ayaa hawsha qayb dhexaad leh ka qaatay waat marka horta saa loo soo kala dhaqaaqay labada tiro isku tirinayay ay labada qolobaad u hiiriyeen shicibkii leeyahay anaka gacantooda ka saareen ay meeshii jiraaday tan waa kii ciidida yimid ciidida wuxuu ka bilaabay dagaalkii gobolada dhexe waa ka degdeg xamar gaaray dadku isaashkii iyagoo iska la fameyd naguma isticmaal dagaal iyo barbaray ku dagaalamay nin wala farq butiri 1990 bishii May waxaad go'aan ku gaadheen inaad Somaliland goosataan heshiis baad ku sii ahaydeen arrinka markii hore waad ii sheegto waxaad heshiis ku ahaydeen maxamed sheekh baraha la ridahay maxaa idin ku dhaliyay ma maxaa keenay ereyga xuquuqda inaan soo ceshan laakiin xuquuqdan difaac iyaan caddayn waay markii aan soo galaynay shirar badan baa la soo galo waxa go'aan noo ahaa waa ku sheegay haddii aan meesha tagar dagaal weyn noqonay dadka jooga ee maatada ah ee qaxootiga 77kii ah ee loo tirinayo nimanka reer ahaan inaan ka argoosan waa cuquube waan ku heshin waan fulin dadkii xariyaha ku jiray hal isma ama magaalada kabadii waxa la xanimaad ku xataa ciidamada dhibanaan taabo ilaahay taa wana garasiy laba waxaan go'aansanay Somaliland labadii bilood xareeraha oo hargeysa aan aad inoo gelin ma aan isku dhacnayo nabad laga doono tiin wala free wala isku yeelay dadka burca la isku yimid marka ku soo koobo disorka asan waxa ku qoraa Soomaaliland ma la xoreyay wuxuu ku qoraa waqtiga aan banaanka joognay Soomaaliland waqti asan waxa ku jirtay موقف حرج قولada shuuciyad waxaan arkaysay nimo waada oo Sacuudiga laga keenay waayo nimanka hogaanka hadee waxa badan waado qoladan Manchester iyo Liibiya iyo waxaan arkay nimanka waadada qolada Mareykanka iyo waadada waxaan arkay niman shuuciyiina way saraakiil dagaalka hogaamin soo dham Ruushka ka wada yimaadeen Ruushka wada hayeen gaariyaha raw noogu dar iyo booy irsi garlay noogu dar wada farsadii akhriay waatay marka labada qof boqol ugu eedeysay marka markaan garanayna neutral noqon anagu taay wana ciidanayeen sidaa darteed ereyga goosashada la soo qaado dee bartiisa ku baxtay markii la soo galo deena soo aan wada hadlo leeyahay maxaa maanta noo waxa maanta wuxuuna lagu bixi karaa niyo odayaashu dad badan baa u jira xamarta ka dhacda waa la arkay hadda bilowta inaga saaray waxaas baa la akhrin jiray odayda arif halno jiro gabiyi waana gabi soo qoran wuxuu bariyaa tiri wadayaabas oday kasta saas u jira dadna waxa la oran jiray halka balaaya ka soo socotee inagu 6 dalku cireeyna nasiibana waa loo dhamaa markaa odayaasha sool iyo kuwa awdal iyo kuwa dhexe iyo kuwa la sqoray cilmiyeeshiin dadka qoraalkiisa xiriir waxba la isku raacin inagu aan teer dhisano kuwana ducayno
qola waxay tala waa laga goostay iyaga idinka laftiina ladinka goostay waa la manifesto qola la yidhaha xamar intay tagtay idinka waxba la weydiiyey wuxuu ahaa iyaga ladinka hor goostay waxaa ninka oran jiray cali mahdi cali mahdi ayuun baa iska yidhi dagaalku wuxuu kasoo bilaabay gobolada dhexe kaasina shirkeeto la fadhiyo ayuu isla sii xooji de saasaa lagu guddoomiyey arrintan intii ka dambeysay waxa weeyaan iminka 21 sano iyo dheeraad somaliland de horta magaaladii hargeysa lama moodo inay magaaladii tahay burco lama moodo inay tii tahay alxamdulilah waxaad ku guuleysteen inaad dadka nabadeysaan waxaad ku guuleysteen magaalooyinkii inay dhismaan idinkoona ictiraaf iyo lacag kale iyo wax kale midna muhimaa dadkiinii iyo nabadgelyadii kalsoonidii ay keeneen in iminka laga yaabo oo la yidhi haslo meeshan maraykan baa dhisay mise cid kalaa dhistay mise xoolay meel kale ka heleen laakiin adigu waad ogtahay waxay ku dhismeen iyo waxay magaranaysaa ku jirto ictiraaf doonna waa tiin iminka inka sidaan idinku laftiinu weli aydaan is ictiraafin waanu markaan la kaftamayo reer somaliland idhaa horta idinku ma ictiraafteen dalkan ictiraafunba dowlado kale uga roodinaysaan oo carruurta yarar halkan markay ka tegeen xageed ka timi soomaaliyaan ka imi ba koranayaan xagee tegaysa hargeyso soomaaliyaan ka imi oo xataa afkii lagu wada hadlayay lafteedii malahay weli ku adag tahay dadka dee muddo dheer baa xaggaa wax la isugu jirayo dhinacii kalena waa adiga og dhibaatada ka taagan iyo hawsha halkay marayso waxaad ka mid tahay ragga odayaasha ah ee maanta ciidan ahaan maahae siyaasi ahaanna isha lagu hayo ama aqoon ha noqoto ama waayo aragnimo ha noqoto ama tala ha noqotee maxaad somaliland kula talin lahayd koonfurse maxaad odhan lahayd iyadana ama soomaaliya horta somaliland hadday dhisantay waxaan isleeyahay wax badan oo qabsan lahayd baad ka dacayman somaliland 20 sano kacaa kufkeedi lahayd iyada dhibaato dhexdeeda dagaalo dhexdeeda ka dhaceen laakiin mas'uula markiiba waa la daweeyey waxaanu dadka dheer ismaqal koonfurta dhibaatada saddex wey ninka qori kasta ma maqla odaygiisa laakiin anagu waxaa soo maray ayaa sheekh ibraahim iyo cabdiwaraabe iyo odayaasha yidhahdeen adar heerkaadi halkaa dhigona maqlan hayn annaga waxaasna gaaran baa cigaal iyo haddii la yidhaahdo nin adigoo kaloo qubaa ka imid talo loo dhiibay aan isku daba taagnaa oo lasu maqla ismaqalkaa iyo isdulqaadasho iyo nafuridda ah ayay somaliland kusoo gaadhay sirta ku jirtaa waxa wey ismaqalka labadii shalay isku dhacay somaliland maanta way ka heshiiyaan markaasa waxay garanayaan isku dhaca iyo seega walaalnimada waxay leedahay iyo xumaantu keeniyo waxay leedahay markaasuu tii intu iska dhigo walaalkii u dulqato ayuu hawsha wada marka horta si wanaaggaasaan lahayn dhowr nina dadka waan dheereyno odayaashii guurteeda ahayd mujaahidiinta wax maqlaaya isagoo naafo oo dhaawac oo kaadin ka socoto weligii ciida uga siin haddana wixii dalka hormaraya yeelkeedaan waa baktiyo odayaashii siyaasiyiinta cigaal oo kale oo dee wax seeska udhigay kamid yahay silaayahan dee oo isagoo intaas hogaanay kolba hadii u fadhiisiya ka tag oo maqlay cabdiraxmaan tuur isagoo lix bilood helay ka tag waa aqbalay allah yarxamu oo kusoo noqday oo lagu aasay oo laisku saamay yani waxa weeye somaliland waxaa nasiib ku leedahay iswadashada dhibaatooda way soo qaata taas waa mid waxaan la dhisayna dadkaa dhistay wax badan oo naga dhameeyey somaliland waxaan kula talinay inay adkaystaan qarannimadooda wixii iyaga ka baxsan markay xaajo ka timaadana ay si wada jira ula xaajoodaan oo wanaagsan dhexdoodana ay iswataan si ay isu wada jireen nabadooda iyo isdulqaadashada iyo mid ku gafa u ka rooraado inay kala dambeyntaa waxgaradkooda hadduu oday dhaqameed yahay hadduu siyaasi yahay hadduu nin kale aqoon leeyahay kala dambeyntaasna oo tilmeer ku gaarnay in la ilaaliyo iyaga intaasaan lah qolada koonfurta waxaan leeyahay wanaagga waxay noogu jiraan ku dhismaynaa inaga oo xaqiiqada waa jahra aqalkaanu dhisanay 60 kugu dumay qayb walba la soo dhiso laba qaybood baanu ahayn qaybtii talyaaniga iyo qaybtii ingiriiska sida afrika xad waliba isticmaalku uga kacay uu dowlad ugu noqday laba dowlad aan kala noqon anagu dowladdiina waa idin baarikaynaa waa walaalshayo oo weynow oo nabad hela oo koraan leena idina intaa in leeg baan idinka baahanay noo dha markaasaan waxay tari karaa markaasaan iskaashan karaa soomaali markay isu hilowdo hala arko
ma nihin qoladeen Somaliland niman goosi ku cararayo oo wax kala gogeynaya labada annagaa rabnaa in Soomaaliya isu timaado oo mid waxda qabsato in geeska Afrika isu yimaado in Afrika isu timaado in la iskaashado fishigaygu waa kaa iyo aragtideedu laakiin waxaan isku khilaafsanahay sidee data ku noqonaysa berigii hore ayaynu si qaldan wax isku dhisnay way duntay deebiyan antoo kale ku noqonay laba dawlad baa shaqeynaysa imika Yurub way midoobaysa laakiin soo dawladdeedii ma dawlad noqday dawlad qasbaysa Luxembourg aragtay lag baa la yaala tanaafsay oo codkeeda leh marka dawlad isu yimid aan noqono deel madariya wixii taa ahaynaba dawladii galbeed Baad fikirsay la isla qibal dawladna dhigul saysan wixii taa ka aad iyo aad baad mahadsantahay Muuse Biixi Cabdi waa ku daaliyay mahadsantahay